madaxweyne Shariif iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa isla hameennimadii waxa gurigiisa gaarka ku qaabilay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele halkaasi oo ugu sameeyay aftiir gaar ah isla markaana uu ku dhexmaray kulan ay kaga hadlayeen arrimaha dalka Soomaaliya iyo xaaladda dagaal ee ka taagan wadanka sidoo kalena ay isku soo qaadeen arrimo kale oo dhowra kulankaasi labada madaxweyne ay ku yeesheen degmada Haramuus oo ku qaabilay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele dhigiisa Soomaaliya gurigiisa gaarka ayaa waxa ka dhashay heshiis ay labada wasaaradood wasaaradda arrimaha gaadiidka ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee wadanka Soomaaliya ay kala saxeexdeen heshiiskaasi la isla gaaray ayaa waxa uu yahay mid lagu dhisi doono xarun qaabilsanaan doonta la dagaalanka burcadbadeeda kaasi oo ay ku midaysan yihiin wadamo badan oo geeska Afrika munaasabada heshiiskaasi oo ka dhacday hotel Kambesti caasimadda Djibouti ayaa waxa ka hadlay labada wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dawladda ku meelgaarka federaalka Soomaaliya Abdurrahman Xaaji Aadan Ibi iyo wasiirka gaadiidka dalka Jamhuuriyadda Djibouti Ali Xasan Bahdoona waxaan halkan ku soo dhaweynaa walaalkii wasiirka vice prime minister Soomaaliya wasiirka Abdurrahman Aadan Ibrahim oo la socday wafdigu balaaran hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo kulan aan ku yeelanay shalay halkan bisi door qodob ku saabsan arrimaha la dagaalanka burcadbadeedka iyo mushkiladaha ka taagan wadaha Soomaaliya iyo cadan khaliishka cadan inaan ka wada tashano ayaan door qodob isku raacay aniga wasiirka markaasi sooralaya ama si taxadar badan aan uga hadalnay dhibaatada ka jirta badan Soomaaliya iyo gobolkaba waxaan isla garanay dhowr qodob in la dardargeliyo muhiimaddu ay leedahay dardargelintaas in marka hore centerka ama xarunta tababarka lagu siinayo ilaalada xeebaha badaha ee gobolka ama waxa loo yaqaan civilian coast guard harweena si fiican u qeexarta ayada waa ilaalada xeebaha badda gobolka oo ilaalinayaan dad civilian ma aha dad military ah in la dardargeliyo meel marinteeda in lagu bilaabo tababarkaas dad badan oo Soomaali ah oo suurto geliya inay ka caabiyaan dhibaatada hadda ka taagan ee burcadbadeed ee badayada gobolka ee Soomaaliya iyo Djibouti waxaan ku heshiinay qodobka labaad in la ilaaliyo lana dhowro bii'ada ay badda ku fadhido ama environment waxaas qalad lagu yiraahdo ee maariinka khuseeya taasoo markaa preservation u sameynaysa noolaha ku jira badda ama ha ahaado mid xayawaan ama ahaado mid dhireed ama ahaado mid mataqaana ilaah ugu talagalay inuu ku dhex noolaado kalluunka in la dardargeliyo dugsiga dadka ku soo xaroonaya iyo macallimiintaba in ay door wanaagsan ka qaataan barashada sharciga ilaalinta xeebaha badda oo aan lagu xadgudbin xuquuqda noolaha uu badda leeyahay iyo wax badda ka dhex shaqeynaya in la yareeyo ama waxyaabaha loogu magac daro negative impactiga in la yareeyo dhibaatada ka imaan karta burcadbadeedka heshiiskaasi ay isla gaareen labada wasaaradood ayaa kadib waxaanu ka wareysanay cidda maalgelin doonta xaruntani la dhisayo isla markaana qaabilsanaan doonta la dagaalanka burcadbadeeda oo aanan ahayn qaab military Professor Ibi wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dawladda ku meelgaarka Soomaaliya bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasuulillah wa alihi wa sahbihi horta wareysigan shirkan ma inta shir lagu soo talagalay waa shirka dhex dhashay imaashaha madaxweyne Sheekh Shariif xafidullah markuu yimidna waxay abuurtay in labada madaxweyne ka wada hadlaan oo centerkan lagu tababarayo ka hortagga burcadbadeeda in
in lagu sameeyo magaalada Djibouti 9 dal baan saxday anaga ugu horeynay maadaama lagu tuhmay Soomaalida in ay ku jiraan khubaro aad ugu wanaagsan xagga arrimaha badda sida admiraalka badda loo magacaabay ee dowladda Soomaaliya admiraal Farax Qare oo professorna in economics and finance horena ugu fiicnaa mataqaan dowladda Macaasiya barna ahaa mataqaan ciidamada badda dadka aqoonta badan lagu tuhmana kana noqon doona insha Allah macallin mataqaan xaruntan lagu tababarayo dadka waxaad moodaa adduunyada xogaar waxay u janjeedaa in laga dhigo civilian oo aan laga dhigin ciidan sadarteed marka maalgeliyaasha sida dowladda Japan iyo Faransiiska iyo raba in ay tababaraan ka hortagga ciidamada ka hortagga ilaalada xeebaha badda oo civilian taana ku celiya oo civilian in lagu tababaro mataqaan xaruntan dhexe iyadoo marka impactiga ay yeelan doonto ay laba kala bixi doonto impactiga oo ah ciidamadan saddex wajiib yeelanayaan ka hortagga burcadbadeeda ilaalada sunta lagu shubo badaha mataqaan kalluunka la dabargooyo oo la xaalufiyo community-ga degan xeebaha degan oo lagala qayb qaato horumarintooda arrimahaas oo dhan baa mataqaan loo xisaaray in xaruntani ay dardar geliso implementationkeedii dhaqaalaheedana international community-ga ayaa ballan qaaday gaar ahaan dowladda Japan oo bari halkan imaan doonta dowladda halkan sabtiga oo rabta barnaamijkan inay mataqaan maalgelin ku sameyso ugu dambeyn waqtiga lagu wada in barnaamijka si toos ah loo dhaqaajiyo wuxuu bilaabanaya 15 January 2010 hadii ilaa raali ka noqdo dufcadda ugu horeysa waxay ka imaanaysaa Soomaaliya macallimiintana Soomaaliya laga qaadanaya inta badan waana barnaamij aad u sareeya oo runtii juhdi badan u geliyay Allah iska daayay mataqaan Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dowladda Djibouti runtii hawl badan uu ka qabtay bay ku timid in xarunta loo doorto dowladaha Afrikaanka ee badaha leh lagu doortay 9 dal hadda way saxeexeen annaga gaar ahaan tixgelin gaar ayaana la siiyay sababtoo badda ugu dheer ee Afrika ayaanu leenahay xalina markii labada madaxweyne ay ka wada hadleen arrinta iyada waxay ku heshiiyeen in labadaanada wasiir xagga civilianka ee arrimaha badda khuseeya in mataqaan ay ka soo saaraan baaqan maanta ka soo saaraan madaxweynaha dowladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo muddadii u dambeysay socdaal ku maray wadamada Carabta qaarkood ayaa waxaa socdaalkan uu dalka Djibouti ku yimid ay martiqaad uu ka helay dhigiisa dalka Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa arrimaha kale isla soo qaadeen mas'uuliyiinta reer Djibouti waxaa ka mid ahaa ciidamada ku tababaranaya hadda dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo dabayaaqada bishan aynu ku guda jirno u dhamaani doono tababarka uga socda dalka Djibouti waxaana madaxweyne Shariif la filayaa inuu ku noqdo